السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا السوشيال ميديا ku saaxiibnay kuwaasoo markasta nala socda pageka youtube ku leenahay sorry channelka youtube ku leenahay aabaha xisaabta iyo weliba pageka facebook ku leenahay aabaha xisaabta maanta cashirkeeni waa cashirkii lixaad waxaynu ku qaadan doonaa insha allah LCM first maxaa laga soo gaabiyay LCM muxuusa naga caawinayaa barashadiisa LCM waxaa laga soo gaabiyay lowest common multiple lowest laga soo gaabiyay sida common baa laga soo gaabiyay mtana multiple baa laga soo gaabiyay marka muxuu naga caawinayaa LCM wuxuu naga caawinayaa inaynu ka shaqeyno isku darista iyo waliba kala jarista fractionska kuwaasoo hooseyaashooda kala duwan yihiin nacam haddii ay hooseyaasha isku mid yihiin cashir koriyo qaatay aad buu fudud wax LCM loo baahan jirto laakiin hooseyaasha hadii kala duwan yihiin sida cashirka berito insha Allah LCM kana isticmaal doonaa LCM ka hadii aad fahantid cashirka berito waxa ku fududaanaysa inaad fahanto laakiin LCM maanta hadii aadan fahmin way ku adkaan doontaa isku day inaad fahanto waa easy marka LCM wuxuu u baahan yahay fundamentals waxyaabo asaasi u baahan yahay waxaa kamid waxyaabaha asaasiga waxaa kamid ah goormee tiro horta first waxaa isticmaali doontaa waxa loo yaqaano prime numbers maxaa la tiro naftirkeeda iyo hal isku qaybsanayso waa tiro naftirkeeda iyo hal bis loo qaybi karo wax kale aan loo qaybi karin tirooyinkaasi maxaa kamid ah 2 waxaa kamid ah 3 waxaa kamid ah 5 labo waxaa loo qaybi karaa labo qof ama hal qof la sii karaa 3 waxaa loo qaybi karaa 3 qof ama hal qof laakiin 3 laba qof la siin hadii la jajab imaanayo 5 waa sidoo kale 7 qoysi soconaya marka basic ka waana isticmaal doona 3daas ugu badnaan doonto inta isticmaal doono waa 2 3 iyo 5 marka waxaa u baahan ah inaad ogaado goormee tiro laba loo qaybi karaa labo waxaa tiro loo qaybi karaa markay tiradaasi ay tahay dhaban inay tahay sidee baan ku ogaanayaa su'aal kale waa idin dhaban inay tahay waxaad ku ogaanaysaa inuu xarafka ugu dambeeyo uu ahaado eber ama ahaado 2 ama ahaado 4 ama ahaado 6 ama ahaado 8 hadduu eber u dambeeyo 2 u dambeeyo 4 u dambeeyo ama 6 u dambeeyo ama 8 u dambeeyo intaas haddii u dambeeyso tiradaasi that number u dambeeyo waxa u qaybi kartaa tiradaasi labo idoo wax baaqi aan soo harin goormeeter loo qaybi karaa labo waxaa tir loo qaybi karaa markay xisaabtu ay tahay dhaban inay taasi ku ogaana intaas inuu dambeeyso tusaale ahaan waa 10 waa 14 18 waxaa u dambeeyo 4 waxaa u dambeeyo eber waxaa u dambeeyo 8 u dambeeska dhinacaas waa mar laba inaad fahanteen oo maleeya sidoo kale goormee 3 tiro loo qaybi karaa 3 waxaa tiro loo qaybi karaa tirooyinka aad haysato ayaad isku soo dardaraysaa markaad isku soo dardarto haddii ay ku soo baxdo 3dan tiro midkood ah waa 3 6 9 3daas tiro midkood haddii ku soo baxdo jawaabtaada waxaa loo qaybi karaa tiradaasi 3 loo qaybi karaa sidee baa tirooyinka isku dareynaa tusaale ahaan waxaa rabnaa 12 3 ma loo qaybi karaa koodi waxaad sameynaysaa tirooyinka isku daraysaa meeqa tiro haysta meesha 2 tiro oo ah 2 iyo 1 hal ku dar waa 3 haddii markaa isku darto tirooyinka ku soo baxdo 3 ama 6 ama 9 jawaabtaasi ama numberkaas waxaa loo qaybi karaa 3 idoon wax baaqi aan soo caawin marka la ku soo celiyo goormee tiro loo qaybi karaa 3 waxaa tiro loo qaybi karaa tirooyinka markaad isku darto haddii ku soo baxay 3 6 9 tusaale ahaan tusaale kale noo sameeyay 15 kale 3 ma loo qaybi karaa waa ha ama maya hore ma go'aansanay sababtoo laba ama maan labo hore ka shii karta hadduu 8 ama intaas u dambeey aragto
isla markii laba waa loo qaybi karaa. 12 laba ma loo qaybi karaa ha isla markii waa dhehaysaa sababtoo ah laba u dambayso laakiin 15 saddex ma loo qaybi karaa hore ma ka sheegi kartid. waxaad samaynaysaa waad isku daraysaa marka hal baal waxaad ku daraysaa 5 hal 5 ku dar waa 6 marka aniga 6 ay soo baxay saddexdan tiro 6 ma ku jirtaa nacam yes 15 saddex waa loo qaybi karaa 72 camal saddex ma loo qaybi karaa lula ma u isdhibaysid waxaan haysaa 2 7 ku dar 9 yes saddex waa loo qaybi karaa waxaa lagu dhahay 21 saddex ma loo qaybi karaa isku dar 2 hal ku dar waa 3 waa loo qaybi waxaa lagu dhahay 82 saddex ma loo qaybi karaa isku dar 8 2 ku dar waa 10 laba gud marabna anaga laba gud ma la ogolo oo 9 number kaliya ma la ogolo halkii eberka isku dardane waa hal inta ku jira amay sidaas daraadeed 82 saddex ma loo qaybi karo oo jajab baa soo galayo inaa faanta idan umalayna number 5 asna waa asaa uu fudud goormaan number 5 loo qaybi karaa 5 waxaa tiro loo qaybi karaa haddii ay u dambayso eber ama 5 labadaas number haddii u dambayso su'aal ahaan 10 5 loo qaybi karaa yes oo loo qaybi karaa sababtoo ah eber u dambeeyo 45 5 loo qaybi karaa yes sababtoo ah 5 u dambayso intaasi waa intaas hadda kor 5 waa sidaas oo ah haddii u dambeeyo waa eber ama u dambeeyo 5 su'aal ahaan 10 iyo 45 sababtoo ah waxa u dambeeyo kan 5 kan waxa u dambeeyo eber hal number oo dheer ay qori doonaa insha Allah waxa ku soo doonaa saddexdood kee loo qaybi karaa kee aan loo qaybi karin waa 4 5 3 6 9 waxaan rabaa numberkaas 453,690 laba ma loo qaybi karaa saddex ma loo qaybi karaa 5 ma loo qaybi karaa first misdemeanor maxaa u dambeeyay eber goormeetir loo qaybi karaa markay dhabantaa soo ma dhaban soo ma hadda numberkan eber u dambeeyay dhaban si ku ogaanayso in uu dambeeyo intaas number markay u dambeeyay laga reeso ma hadda waxa u dambeeyo eber numberkaasi can be divided to without remainder laba waa loo qaybi karaa iyadoo wax baa soo haray saddex goormeetir loo qaybi karaa saddex waxa loo qaybi karaa tirooyinka aad ku daraysaa waxaa dad 4 5 ku dar waa 9 9 saddex ku dar 12 6 ku dar 18 9 ku dar gives you 27 eber ku dar 27 Soma 27 laba number waa laba digit ay ka kooban tahay isku sii dar naftirkeed 27 isku sii dar gives you 9 goormeetir saddex loo qaybi karo saddex waxa loo qaybi jiraa hadii tirooyinka isku soo darto kulli isku soo darto ay ku soo baxday saddexdaas ama lixdaas ama sagaalkaas just waxaan soo bax 9 sidaas daraadeed can be divided by 3 without remainder 5 goormeetir loo qaybi karaa waxaa 5 tir loo qaybi karaa haddii ay u dambayso eber haddii ay u dambayso 5 maanta maxaa u dambeeyay eber also waa loo qaybi karaa can be divided by 5 without remainder iyadoona wax baaqi aan soo haraynin marka adiga ayaa laga rabaa isku soo day exercise inta ku qoraya inta number oo loo qaybi karo inta number loo qaybi karna laga rabaa konton meeqa number loo qaybi karaa laba loo qaybi karaa 5 loo qaybi karaa 3 loo qaybi karaa adaa laga rabaa 12 meeqa number loo qaybi karaa 450 meeqa number loo qaybi karaa isku soo daa marka intaasi sharxaad ay hordhac ay ahayd cashirkeena hadda marka cashirka la doono bilawnaa lowest common multiple oo laga soo gaabiyo LCM marka example 1 node example 1 waxaan dhahay find the LCM of LCM kii wadaagaan number 8 and number 6 waxaa lagu dhahay find soo helo LCM ee wadaagaan number 8 iyo number 6 marka solution node waxaad noo samaysaa kasto waxaad masaas u dheer labada number baad soo qaadanaysaa waad kala hormari kartaa saad rabtaa oo kala hormari kartaa la problem 8 kuma calaamad la isticmaalaysaa iyo 6 marka waxaa isticmaali doonaa xulul qaana prime numbers oo dad aan soo sheegay oo ay 2 5
oh 3 aan ka booday intaas ka dhigni malaan 7 kuwaas isticmaal doonaa prime numbers kaas isticmaal doonaa marka waxaad leedahay labadan number ma ku jiriyaa number loo qaybin karo labo si u kala weyn oo isticmaalso 2 3 5 7 kana daawayso kana siinaysa hadii guri aa wax keento kan ugu weyn ma siinaysa kan ugu yar siinaysa kan ugu yar aad ka bilaabaysaa marka soma marka waxaad leedahay kan ugu yar maxaa marka 2 number labada number 8 iyo 6 number loo qaybin karo ma ku jiriyaa sidad goormeetir loo qaybin jiray adaa laga rabaa markay dhaman tahay 8 waa dhaman 6 waa dhaman sababtoo ah kan 8 u dambeys kan 6 u dambeys soo lamadoodba waa loo qaybin karaa boos inta loo igu qormo marka loo meeshaas ay u qorto qayb waxa la ismeenaysaa 8 kan waxa u qaybinaysaa labo 8 dan labadaas u qaybi ma soo bixi doono afar 6 dan waxaad u qaybinaysaa labadaas waxaa soo bixi doono 3 hadii maxaan soo baxay afar intan waxaan soo baxay 3 kumadaas kuma waa calaamadaas waa soo degsanaysaa faasil af carabi xilliga carabta ay jirno laakiin hadda kumaanay taas markay ay tahay inta waxaan soo baxay 4 iyo 3 waxaad dheesaa hadane labadan number 4 iyo 3 number loo qaybi karo ku jiriyaa yes afar baa ku jirto laakiin 3 ma loo qaybi karaa labo maya 3 kisi waaye saas waa marka ay labo midkood daasho u qaybi kartaa afar hadda loo qaybi karaa Soomaa igu qaybi waxaad leedahay 4 divided by 2 afar loo qaybiyay labo gives you 2 comma aleda 3 loo qaybiyay labo uma qaybsanto sababtoo ah 3 kisi waa iska soo dajadi u qaybsan hoos iskan 8 u soo celi hoos marka keento haddana inta maxaan ugu soo haray labo inta waxaan ugu soo haray 3 waxaad leedahay hadana number labo u qaybsama adi laba ka bilaabaysaa labo marka u qaybsamo waayo ama labadood ay u qaybsamo waayaan labo ka bacda 3 mu qaybsamaanaysa laakiin hadda wax labo u qaybsama dooyal labo mu qaybsamaan la iska soo jiraa labo wax u qaybsama ku jira yes laba ku jirto dhabana labo u qayb marka labo u qaybi 1 3 labo u qaybi uma qaybsanto Soma haddeertaan wax labo u qaybsamayo meesha ma yaalo sababtoo ah labada number waa kisi saas marka ay tahay waxaad leedahay labo waa la waayay Soma labo prime numbers markay ahayn maxaa ku xigay 3 wax 3 u qaybsamo meesha ku jira yes 3 yana 3 u qaybsamayso halkaas laakiin mu qaybsama 3 u qaybi halkaas isku soo daji 3 u qaybi hal markii meesha u dambeys aad geysto hal iyo hal meeshaas baa ku samaysaa markaas baa waxaad leedahay L C M wuxuu la mid yahay intaana isku soo dhufanaysaa markii 2 2 2 3 isku dhufanaysaa waxaad leedahay 2 times 2 kale times 2 kale times 3 which gives you 2 times 2 4 afar laba ku dhufo 8 3 ku dhufo 24 marka LCM ku dhaxeeyo 8 iyo 6 waxa uu la mid yahay 24 naan garataan malaynayaa marka hal xabo kale ma oo noo darayaa example 2 find the LCM so buu guuri gari laakiin ada find the LCM of waa iska leeyahay 5 6 iyo waliba 10 saddexdaas tir LCM ku dalayaa marka sida oo sharciyan ay xariiqo dheer noo sameey inuu darsamin waxaad leedahay 5 6 10 Soma marka waxaad leedahay number labo u qaybsan ku jira yes labo number ku jirto labo u qaybsan oo ah 6 iyo 10 kan dhawan waay laakiin 5 kiisi waa labo mu qaybsanayso laakiin midkood baad hal xabo kamid ah u qaybsanayo u qaybiga ka cabsan ay labo u qaybi 5 labo u qaybi uma qaybsanto kuma ide uma qaybsanto hadeen u qaybsan isku soo dajiya lagu wada 6 labo u qaybi 3 10 labo u qaybi waa 5 just waxa la u qaybsan ku jira meeshan waa comma point u maleyn please
wax laba u qaybsama meesha maanta ma ku jiro waa la waayay labo way dhimato maanta maxaa yeelo 5 iyo 3 iyo 5 wax oo u qaybsamayo laba daaway Soomaan laba midka ku xiga aasinaysa laba maxaa ku xiga 3 prime numbers aan 3 u qaybsama ku jiro meesha yes 3 u qaybsama laakiin 5 3 mu qaybsamayso 5 3 mu qaybsamayso hay 3 u qaybi 5 3 u qaybi uma qaybsanto 3 3 u qaybi 1 5 3 u qaybi uma qaybsanto hadii uu qaybsamin iska soo dajiyo just wax tuu qaybsama meesha ma ku jira waa maya wax tii u qaybsamayo waa maya waa 5 u qaybsamayo ha labadaas number af shan u qaybsamo 5 goor ma tuu qaybsamayso markay u dambayso 5 ama eber u dambayso maanta 5 u dambayso ma kubusi 5 u qayb halkaas iska soo dajiyo 5 u qayb ha meeshaas markii aad ka dhigto hal aad ka dhigto waxaad leedahay LCM waxay la mid tahay ama wuxuu la mid yahay intaas number oo la isku soo dhufto inta number meeshaas ah u qiimo soo oo ah 2 times 3 times 5 and gives you 2 times 3 was 6 6 times 5 gives you sorry LCM kalkaas ay la mid yahay marka waxaan idin qori doonaa story exercise idin qori doonaa maxaan jawaabihiisa wato exercise noode موضوعها يقارن وexercise انت راح نقول خلدونا answers كيسا كبعدي A B C كابل معايا قروع عنو قرطة find the LCM of the following waxaad soo yeeshaa LCM ka soo socda tan koowaad A B C A waxaad soo yeeshaa 4 3 2 LCM ka wadaagaan saddexdaas tiro LCM ka wadaagaan laga rabaa tan labaad waxaa laga rabaa 5 3 LCM ka wadaagaan tan saddexaad waxaa laga rabaa 2 4 3 iyo waliba 12 afar ka dhig laakiin waa isku mid ah sida hadda u soo misay kibacdi answers-ka insha Allah waxaan noqon doonaa A B C A waxaa soo bixi doonta insha Allah waa 12 A wadaaga B waa 5 sama waa LCM code insha Allah wuxuu noqon doonaa waa 15 C ama tan saddexaad LCM code waxaa noqon doonaa insha Allah 2 4 3 tumilo sama LCM code tumilo noqon doonaa marka cashirkeena halkaas ayuu ku eegay waa kaas aqalkiina subscribe lagu sameeyo channel si aad ula socoto cashirkan iyo waliba cashir ka macaan badan oo waliba lacag la'aan ah only waxa ka xigta subscribe na ku sameeyo channelkeena ama Facebook page keena like sarto kabacdi toos ku soo dhacdana cashira marka ay ku soo dhacaan waxa laga rabaa hadii cashirka marka aad dhageysato oo aad fahanto kasto fahanto markii fahantan exercise ka shaqeyso marka exercise ka shaqeyso jawaab ku soo baxday ku soo baxaan waa saxanta saakudi marka ani adi xasku inay cashirka waa dhamaanaya waa cashirka kale tood oo bari ku xigo insha Allah oo LCM maanta doo dhamaanay maxaa ku xigo waxaa ku xigi doona insha Allah addition and subtraction of fractions with different denominators cashirka kan kooriya waa same denominators hooseyaal isku mid ah laakiin maanta hooseyaasheena cashirka brito wuu kala duwanaan doona insha Allah marka ku soo biira channelkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh